السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الميل كستو أجوكتان كنو سو دوادا برنامج كاساكا iyo dunida oo goraahli oo kale aad ka daawataan telefishanka qaranka Soomaaliyeed studio dhexe magaalada Muqdisho qodobada barnaamijka aynu idinku soo gudbin doono hadii ay biiraado waxa kamid ah wasiirka howlaha guud ee dawlad goboleedka Puntland iyo duqa degmada Garowe oo si wada jir ah u dhagax dhigay xaafad cusub oo mustaqbalka la filayo inay ka mid noqoto magaalada Garowe ayaa barnaamijka idinku soo gudbin doona waxa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno aad ku daawad doontaan xaalad abaareed oo aad u daran ayaa laga soo sheegaya deegaanka Kayn oo hoos yimaada degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalkeena Soomaaliya barnaamijka ayaa ku daawad doontaan waxa sidoo kale barnaamijkan intaynu ku guda jirno aan idinku soo gudbin doona magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Sigedo oo horumar la taaban karo ka sameysay dhinaca waxbarashada 10 sano ee la soo dhaafay warbixin ka hadlaysa dhinaca waxbarashada ayaa barnaamijka idinku soo gudbin doona hadii ay biiraado qodobadaasi iyo waxyaabaha ugu soo kordhaya barnaamijkeena sidoo kale qayb ka noqonaya waxa sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno aynu idinku soo gudbin doona dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka oo meel wanaagsan maraya caasimadaha labaad ee dawlad goboleedyada dalka oo iyagana marka la filayo in goor dhow marka doorashooyin ay ka dhici doonaan oo baarlamaanka xubnaha ka mid noqonaya ee deegaan doorashadooda ay tahay caasimada ku xigeenada dawlad goboleedka dalkeena oo magaalada Barawe ayaa sidoo kale kamid ah meelaha la filayo in mar dhow doorashada golaha shacabka xubnaha markaasi ku meteli doona dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladda federaalku markaasi ku soo bixi doonaan shalay magaalada Beledweyne waxa gaaray madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyadana arrimahaasi ayaan falanqeyn doona oo barnaamijka waxa naga la qayb galaya Ugaas Maxamed Ugaas Abshir oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed isagoo jooga dalka Mareykanka ayaana markaa ku bilaabayna oo isaga ayaa qadka Skype-ka si toos ah ugu jira Ugaas Maxamed hadaad maqasho ku soo dhaw barnaamijka saaka iyo dunida الله يعزك وهاي مركلنا محسن أنك أديان برنامجنا يقول أهان تلفزيون قرن كأنتي سمعتي أجد هاي أنا روتي وما هاد كدي حالات هذا كل إذا نوع مقطع وهاي صوت بقول كيبا صدق بقول يصير كسر عم بقول كيبا لا بقول أوركنا روتي ما دام حد إنسان يوصل بي doorashooyinka awalba waxaa loo qeybiyey laba deegaan doorasho ahaayeen hadda deegaan doorashadii koowaad haddii inta laga soo gudbay magaalooyinka kale ee deegaan doorashadii labaad loo gudbay runtii wax weyn ayaa muuqda oo runtii lasoo dhaweyn karo laguna inuu ku faraxsanahay haddaanaan oqaashi iyo marka iyo inta samaha jecel iyo soomaaliduna ay ka goodo walow aan oran karno xoogaa inay jiraan waxyaabo la oran karo xoogaa adigoo xis u baahan oo meelaha qaarkood waxyaabaha ka dhacay iyo dadka qaarkiis sida ay kusoo baxeen noo qaateen ay tahay dhibkana uu ka yimid runtii adiga dhibkaas horta waa la wada leeyahay maanta hadda koox gooniya ama si khaasa loo saari kara ma ido inkastoo dhaqanku ay kusoo ziyaaday waxyaabo oo runtii aynaan hore inaan u aqoon jirin tusaalena aan usoo qaadan karo waxaa dhacday oo la haynaa in oo rag adiga oo erge markii hore isku sheegaya inay la kulmeen madaxweynaha galmudug arrin ay kala hadleen arrintaasi markay kala hadleen kadib al-shabaab xarag dheer uga yeertay u tegey madaxweynihii galmudug iyo maamulkii galmudug murtadiinba ku tilmaamay ooba waa murtadiinba leer ooba xataa social media ku faafsanba marka haddii aan u soo laabano dhinaca doorashooyinka waxa ka mid tahay dhaqanka Soomaaliyeed oo wax badanna u soo joogay marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray doorashadu hadda meel wanaagsan ay maraysaa xukuumadda aad bay uga shaqeynaysaa iyadoo taa ay jirto haddana caqabadooyin yaryar ayaa jira oo markaasi doorashadu sidii ku dardargali lahayd adkeynaya bal halka adiga ka dhaqan ahaan aad u aragto waxyaabahaasi yaryar sida lagu xalin karo xaqiiqatan waa fududahay haddii la yeelayo
waxaan karaa runtii in oo hadda dadkayga Soomaalida weliba dhaqanka runtii in ay arrintan intay iska xil saaraan runtii ay ku dadaalaan ma aragtay kooba alla ka cabsiga labo sida uu dhaqanku ahaan jiray saddex in runlayaal noqdo runlayaal oo runtii runlayaal marka aan leeyahay anaga waxaan aragnaa oo haynaa oo hadda tusaalaha hadda aan kuu sheegaya oo kale dad subaxiina si u hadlaayo galabkiina si u hadlaayo fiidkiina si kale u hadlaayo waaga markuu baryana inuu qofkaasi ama ergahaada ama oday dhaqameed ha ahaado ama siyaasi ha ahaadee xaalad ba lagu tilmaami karo psychology ahaanta adiga in oo markaas disorder mental disorder inuu jiro ay ka muuqanayso marka haddii marka sida ay tahay loo abbaaro isla markaasna qodobadii oo habraacay u dambeeyey ee xukuumadda ay soo bandhigteen sida ay tahay loo dhaqangeliyo waxaa garantiye ah inta iyana soo xataa habraac waa ku cadi sidii loo xalin lahaa walow runtii xukuumadda ay ka gaabisay aanu hadda ogsoonahay inay waxyaabo badan ay ka gaabisay ay jiraan oo sida ma aragtayey in ay ayadiiba ay runtii ay ka gaabisay inay dacwooyinka hadda ay qaarkood inay qabtaan dacwooyin ay hadda kuraas laga soo dacwooday ay weli dib u socaysaa helnaa mana laga sugayn marka sida igu maqaal waxaan rajaynayaa inay markii ay wax soo dhamaadaan kuraasta ee doodaha ka taagan yihiin in dib loo celin doono oo dib dadkii laha loogu celin doono balse arrimahaasoo dhanba waxaa ka akid ah inaan rumayaal noqono haddii aynu nahay oqaashi haddii aynu nahnay culamadii haddii aynu nahnay siyaasiyiinta wax doonaysa xukuumadda oo hawshaan loo xilsaaray guddiyada oo runtii oo doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka waxa ana dadkaygaas intayadaas oo dhan haddii ay rumayaal noqono xaqiiqatan itijaah fiican oo waddanku qaadanaya xildhibaano oo adigu baarlamaanka soo socday iyo tobnaad waxaan rajaynayaa inuu baarlamaan qualifier ah oo quality leh oo kana hadda tobnaad ee bedelaya uu bedeli doono ka fiican inuu noqdo balse haddii aan xaaladda aan ku sugan nahay ee muujinaysa mental disorder inuu jiro waa iska caddahay jiitanku waa sii jirayaa waa tahay waxaan rabaa magaalada beledweyn shalay waxaa gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo si weyn meesha loogu soo dhaweeyey adigoo oo ogaas maxamed ah kursiga ama xildhibaanka ku matalaya magaalada beledweyn ayuu ka soo bixi doonaa bal ka waran aragtidaadii iyo imaanshaha magaalada beledweyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sida markaasi dadka deegaanku ay u arkayaan iyo in ay sii sahlanaanayso doorashada kuraasta markaasi ka soo bixi doona magaaladaasi beledweyn طبعا حقيقة كنت مدحوين الجودلا وإنكسر مركز وجوه رئيسي وماشي انتهاي أنا جعلين فيلينا إن أيضا مرحلة الجيل إنه مركه وماشي تبع أو له إنه تجاه أحد لكن سيدا مقطع بيراه الدقيق هيران ولبها هيران مقال مذهب بالمنطقة بقول كي بصدح بقول وأفوق العسين أفر يطلونك قبيل الدجاج من أفر يطلونك قبيل إنك إنك ركب غلبة ويكون قناعسين هين ومانتي وجود لو نسيت عن أسئلين وحرجوين أنا كخمنا إنك صحابة دورشني جوهر كت عليه وحياة خلال الجلاد لكن محرجين يا إن سلخد الدورين بالويلة بلنقات وحد وشعب كأسميين وكتبيو ورجب وحنا كقبنا الجود لو كنت مركي حقيقة له وهذا ما من قبلات الجراه ما من قبلات ككرية يفتح الشيء سريع ما من قبلات يفتح وما من قبلات حتى كراستي لو جاء أقل كسرة ما من قبلات أسين نلف الرصاص هذا أنت يرتو وأنا ما مقبلات مدة عودية وحنا ردينا يا بلدوينا إلى النقطة شغلنا النقطة دي عم دور شغل لبعض هذا البلامس إن يسوح في هذا يسوون كسولابا هنتي قبائل كهذا السنة وقع أحسن نحن ملحمين جود لاوي وهوش أسبوعته
rajo weynaana ka qabnaa inay wax ka soo baxaan madaxweynuhu muddo maalmaha ayuu joogi doonaa magaalada beledweyne wuxuu la kulmi doonaa beelaha dega gobolkaasi hiiraan tabashooyin badan ayaa jira gobolka oo laftigooda la rabo in xal laga gaaro waxyaabaha ka dhaqan ahaan aad kula talin lahayd beelaha gobolka hiiraan dega oo cabashooyinkoodu waqtiyadii ugu dambeeyay badnaa la rabo inay kala hadlaan madaxweynaha ama ay ka aqbalaan oo adiga aad u jeedin lahayd maxaa ka mid ah wallaahi halkan waxaa ugu baaqayaa bulshada ku nool hiiraan weliba gaar ahaan beledweyne iyo agagaarkeeda iyo degmada kabxalley iyo ereadaas in ay kowga horta alla ka cabsi ay muujiyaan walaalnimo ay muujiyaan ayna la shaqeeyaan madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle iyo maamulka jiraba taasoo runtii ay ku gaari doonaan wax badan oo hadda oo hakadii ka galay dhibaatooyin badan oo dhacay oo runtii ay dad qaarkii ay geysteen aynu ognahay hadda adigoo 3 bilood ka hor meeshaas waxaa ka dhacay kulxumo weyn oo hadda aan doonayn inaan hadda TV-ga qaranka aan uga hadlo marka waxyaabahaas oo dhan waxaa looga gudbi karaa beeraha meesha degan weliba hadda beeraha xabtoor runtii odayaashooda waa dadaalaya waxaan marka kula talinayaa odayaasha xabtoor inay dadaalkooda ay sii laba jibaaraan dhinaca kalena beesha kale ee wax laga tirsanaya runtiina deegaankana ayadana cudud ku leh kana muuqata xaq badanna ku leh inay ayadana tanaasul badan iyo daacadnimo iyo ehelnimo ee muujiso iyo soomaalinimo si xal waara loo helo ayna u soo laabato karaamadii iyo sharaftii ay reer hiiraan lahaayeen hiiraan runtii waa gobol runtii taariikh weyn ku fadhiyo markii soomaaliya loo eego oo dhextaal ah oo dadkii ka soo baxay soomaaliya yihiin aqoon-yahanada ay aqoon jiraan dadkii ku dhashay ay ka soo baxay ahaayeen dadkii waddankan soo hogaamiyey ee heerka uu wixii wanaaga u qabsoomay u qabtay marka dadka hadda jooga waxaan ka codsanayaa weliba gaar ahaan cuqaasha gaar ahaan weliba markii xaqsoor laga raba beesha kale meesha degta wax laga tabanayo inuu caqligu shaqeeyo si saliimana ay ula shaqeeyaan waa ogahay rag wanaagsan oo fiican baa ku jira oo haddaba dadaalaya oo weliba ogaaska uu ka mid yahay aan ognahay runtii wax weyn qabta haddana wax weyn ku tala jira marka arrimahaas oo dhan markii laga yimaado waxaan rajaynayaa in runtii maamulka hirshabelle weliba gaar ahaan hadda madaxweyne ku-xigeenka oo haddaba deegaanka hadda kasoo jeeda hiiraan oo runtii nin dadaal badan ah oo nabadna ka shaqeeyey intaasna dadaalayay guud ahaan horta maamulku waa dadaaloyaa dadaalkaas marka waxay ku xiran tahay hadba sidii loola shaqeeyo guud ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed adigu dhaqan iyo culamada weliba gaar ahaan culamada annaga dhaqanka runtii inta badan runtii inta dadaalaysa ee damiska ah ee wax daminaysa ee dadaalaysa runtii dhaqanka u badanyay inkastoo lagu dhex jiro oo dad iska adiga yani dadkooda soo duuban ee adigu danta uu magacaabay oo iskaga dhex ordayaan iska afarjaro u jiro laakiin cuqaashu waa dadaalaya oo runtii maantay nabadda yarta la haysto oo waxaa xaqiiqa maanta ruuxa soomaaliga raaskaangoyn turaas caseer uu isfadhi karo meesha loo la degi karo waxaa taas ka shaqeeyey kana shaqeynaya waa cuqaasha iyo duubabka waay kaalintii waxaa maqan culummada waxaan usoo jeedin lahaa runtii waxay anaga markayna wacdinayaan lagu cesha inay yidhahdaan sunnada rasuulka hala raaco sunnada rasuulka aan qaadano sunnada aan qaadano ayaga marka waxaan usoo jeedin lahaa ha laydinka helo hal shiikh oo raaca suldaanul culamaa izi ibnu cabdisalaam bal ninkaas kudayda oran waa hagaag waxaan rabaa aan usoo laabano dhinaca dhaqanka doorashada imika ka socota dalkeena dhaqanku loogama maarmo oo kaalin weyn ayay ku leeyihiin oo markaasi soo xulista laftigeedii ergada kala duwan iyo arrimahaasi waxaa loogu dambeeyaa ugaaska ama nabadoonka reerka ee doorashooyinka dalka socda xubnaha la soo xulaya bal ka waran iyaga laftigoodii kaalintooda marka la fiiriyo habka hadda ay wax u wadaan adiga laftiga dhaqanka Soomaaliyeed ka mid tahay nin wax badan la socda ayaa tahay kaalinta laga rabay ma buuxiyeen haddaysan buuxinina bal waxyaaba laga rabo maxaa ka mid noqon kara si doorashooyinka dalka ka dhacaya ay u noqdaan kuwa markaasi la dardargeliyo oo waqtigooda loogu talagalay markaasi ay dhamaadaan ama la gaarsiiyo
أنا يعزك حقيقة كان تحط مبينين ولا قتي مركي إلى هرس وهرمه odayaasha dhaqanka waxaa kaalintoodii oo runtii u dambeeyey muddo laga joogo 20 sano wixii ka dambeeyey waxaa iska socday odayaal uu waqti ugu magacaabay oo rag siyaasiyiin ay magacaabeen doorkoodii markii loo fiiriyo shirkii cafta door muhiim oo weyn ku lahayd waana muddo waxay soo qabteen maanta waa arnaa oo maanta dowladnimada Soomaaliya ee inta yarta hadda la haysto raggii aasaaska iyo sarka u dhigay ahay marka haddii doorkooda loo madax banaaneeyo oo looga dambeeyo oo aan yani markii oo sheekada doorka ay lahaayeen ay oga dhaqan inay isla markaasna ay ka doodaan waana ognahay waxyaabo badan oo ismarsiinaya oo siyaasiyiinta wataana jira arrintaas inay hor istaagaan waa intay goor tahay sababtoo ah waxa hadda cabsi ka taagan tahay baarlamaanka 11aad inay soo galaan kuwii hore ee 10aad ay ku jiray oo markale ay soo laabtaan oo hadda meelo badan ay ka soo laabteen iyo kuwa kale oo cusub oo khabardaar ah oo dhalinyaro u badan oo laga yaabo inay soo dhex galaanba nimankan al-shabaabka ah marka si taas looga feejignaado looga fogaado odayaasha dhaqanka waa yaqaaniin koodii saalix ah iyo koodii faasid koodii wax u qabanahay koodii deegaanka wax u qabanahay koodii Soomaalinimada ee ka goolo waa yaqaaniin dhaxda ha u xirtaano ha soo istaagaano maamul goboleedkii ee xataa ay ka dareemaan naftu waa awood maanta waxaa jirta social media jirta idaacadaha furan telefishin yaala waa inay odayaasha dhaqanka haddii tooda la qaadan waayo saxaafadda ee la hadlaya ilaa dhibaatadaas jirta waa Soomaaliyana la ugu dambeyntii ugaas maxamed marka aan ka soo gudubno ciwaankeena iyo arrimaha doorashooyinka aan ka tagno Mareykanka ayaa joogta su'aasheeda ugu dambeysay ay noqonaysaa Mareykanka waxaa ka jiray waqtiyadii ugu dambeeyay warbaahinta caalamka iyo kuwa gudaha laftigooda ay aad u baahinayeen dilal aad uga soo badanaya gudaha dalka Mareykanka oo dad Soomaaliyeed waliba loo geysanaya gabar Soomaaliyeed iyada caruurteeda la xiray oo la kaxeeyay oo xabsi ku jirto lagu soo waramayay marxalada aad u fara badan ayaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed daroogiska isticmaalaan oo xaaladooda adag tahay adoo marxalada guud Mareykanka isku soo daraya bal la wadaag bulshada Soomaaliyeed ka nabadoon ahaan adoo uga hadlaya arrintan طبعا runtii meeshaan markay ilaahay hortiis ku hadlo أنا leexana waa ku dayacana maanta qaran Soomaaliyeedna anaga ugu dhibaatada ugu weyn anaga nagu haystaa lowla maanta runtii in yar oo dowladnimo ah iyo nidaam ee Soomaaliya ka dhici lahayd waxaad arki lahayd aeroboortka Muqdisho iyo aeroboorada Soomaaliya oo busy ah una buux dhaafnaan dadka hadda aad maanta aad arkaysaan oo hadda Mareykan iyo meel wadamadan reer galbeedka ku nool waana runtii dadka maanta dadaalay ee 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed udub dhaxaadka u ahaa yani runtii kaalin mugle ka geystay nolosha maanta ee Soomaaliya yar ee haysto oo sida loogu talagalay haddii Soomaaliya ay dadka dibadda jiray ayagana khas uga dhici lahaayeen Soomaali jiritaankeeda maanta la soo diidaa meesha hadda dowladda soo warsanayo marka meeshaan waxay tacadiyo aan xisaab lahayn ka jira runtiina xaqiiqatanna waxaa jira oo problem uu ka taagan yahay waxaa jira crime organizer oo fara badan oo rag ay maanta ururo dhisanaa jira oo criminal ah oo gang ah ooba ku shaqeynaya qaabab kala gedisan oo la yaab oo masaajidada kula soo galaya oo iskuulka college ama jaamacad waxa aad kula aadayo oo wax walba isku ah isla markaas kaliya doonaya laba mid kaliya haddaad gabartay haddaa wiil tahay inay ama khadka ay kugu daraan oo kooxda ka mid noqotid waa ima haddii oo firfircoonada la arko adiga khadkaba lagaa saaro ooba haddii lagu dilo haddii si kale lagu yeeli karo waxyaabo badan oo tacadiyaha meesha ka jiraan waana ognahay inkastoo hadda community-ga Soomaaliya hadda baryahan dambe ee xoogaa dadka jiran oo dadaalaya ee u idin oo hadda rus u jiro
aanu ku dadaalayno in aan jaaliyad adag oo Soomaaliyeed oo looyaro leh oo wax walba leh inaan samaysano laakiin waxyaabo maanta oo runtii aan si practically in idin taabsiyo maaha inaan hadal inaan ku fahmi karin meeshan oo waxaa kaloo yaala marka aan soo kooboba geedkan hadda anaga smartphone-ka loo yaqaano runtii dadkayga wax u naqaanaa smartphone sababtoo baraayo jaabkaaga ku weydid waaye uuna halkaas kaala socdo kuwa criminalka organizerka oo ka shaqeeya oo noocyo kala duwanaa jira haddana xaaladaas ayada maanta waxaan ogsoonahay inay caasimadii Soomaaliya loo soo raray oo la ognahay rag oo daraag dhiilara iyo wax lamid shaqooyinkaas ku jira in ay maanta Muqdisho halka usoo wareegeen dhaqdhaqaaqyada foolxumada hadda Muqdisho laga sheegay ee dhaqanxumadana raggaasaa wada waana organize billahi calaykum intay goor tahay halaga hortago haliska qabto annagana waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nagu salaamo yeelo meel xushaani waxyaabo badana ka jira waa la iskaga nool yahay waa la rafanahayaa runtii community Soomaaliga weliba gabdhahooda khayr Allah siiyo waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa ugaas Maxamed ugaas Abshir oo isagoo jooga dalka Mareykanka Escape-ka igu waramayay barnaamijka saaka iyo dunida ayaa wali daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayuuna si toos ah idin kaga imaanaya markana magaalada Garbaha